boos soo dhawow bal waxaad sharaxaad iga siisaa bal xaaladihii u dambeeyey iyo fariinta aad jeclaan lahayd inaad u gudbiso dadkii ku xirnaa shirkadaada. munasaro horta waa dhawahay waa mahadsan tahay. waxaan rabaa aniga waxaan ahay maxamed tahliil ninkii iska lahaa shirkadii burburtay 252 Forex 252. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadkii lacagahaas ugu lahaa inaan halkan uga cadeeyo sida hore baan u cadeeyay in lacagtaas ay ugu dhuntay oo ay qasaartay oo suuqa intaas lahaa faa'iido badan ka raadi ay lacagtaas qasaartay. sababay ay u qasaartana dadku waxay isweydiinayaan lacagtan hal mar ma wada qasaari kartay su'aalaha badan ay soo laabto waxay ahaayeen waxay taa lacagta hal mar ma wada qasaari kartay maxaa loo kala caymi waayay. marka waxaan rabaa su'aashaasna inaan uga jawaabo suuqa forex qofka markuu uu rabo inuu lacag badan ka soo saaro oo uu rabo inuu high risk ku trade gareeyo ama uu yiraahdo kunkii ka soo saaro $500 bishii waa aad u adag tahay inaad qatarta ka badbaadid. qatarta hadday ugu dhacdo oo aad riskiga la kulantidna 1 minute ama 1 daqiiqo ayaa ku lumi kartaa lacagta dhan oo aad haysatid oo raasmaalka ka dhaxaya. marka bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa horta taas inay fahmaan in wax la caymi karayo wax la qaban karo ay saahayne sida businesska kale oo kale wax laga taxadir karo lagu dhigi karo ay saahayne ay tahay waxaane hawo oo kala marka taas inay fahmaan aan rabaa. tan labaad qodobka labaad aan rabaa inaan cadeeyo waxa waaye dhibkii markuu gaaray aniga oo shirkadda ay qasaartay sida shirkadaha kale badan dad hore u qasaareen jirin oo waxooda qarsan jireen. marka aniga waxa ii suurtagal weyd inaan inta taleefanka dinsada aan dhuunto oo markaas aan noqdo tuug lacagta la cararay. marka taa bedelkeeda waxaan sameeyay inaan media imaado oo aan Facebook ku soo cadeeyo oo aan qoraalo soo duubo oo aan sawiradii soo diro lacagta qasaartay oo groupka aan la wadaago. taasa marka waxay saashay in dadkii waxay sabab u noqotay in dad aan aniga cadaawad gaar ah igala dhaxaydo oo social media aad u isticmaalo inay qalad u fasireen oo dadka ay dhinaca kale ugu fasireen oo dhaheen waxa ka dambeeyo shirkadaha oo bangiyada waxa ka dambeeyo hormooda ka dambeeyo ninka lacag siisay in la dhaho dawladda ka dambeeyo waxa forex kula dagaalayaan forex lafteedana inay dhahaan qayb kamid ah inay dhahaan anaga waxa dhacay nalo adeegsanayo oo lagu burburiyo. marka social media barnaamijkii dhanka u wajaheen taas marka waxay sababtay haddana culayskii aan wajahay oo ahaa inaan dadkii qanciyo oo aan dadka runta u sheegay in dhanka kale igu badiyo oo laga dhigaanay ninka qandaraas la soo galay. marka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo aniga wax qandaraas shirkad lama gelin hal shirkad oo lacag siida ma jirto dawlad lacag siida ma jirto qadar Allah igu dhacday waa qasaaray bana ahay dibkaasna waxaan rabaa inaan haddii la qorayo bulshada Soomaaliyeed ay gala qayb qaataan sidii la igu caawin lahaa ee aan dhanka kale loo faafin been aan la iga faafin aan dadka lagu sii dirin. waxaan rabaa shirkadaha gaar ahaan shirkadaha forex-leyda forex ay u furan tahay waxaan u diraa baaq guud ah inay maadaama isku doon saaranahay oo qalab maran qasaarada ay ku dhici karto inay caymiyaan oo ay dadkaas macaamiisha lacagtooda dhuntay list wax caymiyaan waan uga mahadcelin lahaa waan soo dhaweyn lahaa. sidoo kale dadka kale lagu tuumayo sida hormood oo kale leeyahay lacag siiyana ayagana baaq u dirsanaya qof kasta oo dhibkeyga ka qayb qaadan kara waxaan baaq u dirsanaya oo baaqa bal gal baaqa guud aan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago waxa waaye horta marka koowaad social media ay ka joojiyaan dhibaatada ay ugu hayaan barnaamijkii dadkii aan qaaday lacag qasaare inta lacag ma qasaare saanay noqotay shirkado lacag soo qaatay iga joojiyaan qaabsan lahaa. baaqa kale aan rabaa inaan u dirana waxa waaye shirkadaha forex-leyda waxaan ka codsan lahaa in bulshada Soomaaliyeed lacagtooda dhintay iyo anigaba iyo wax shirkadaas ku dhimay wax ay naga caawiyaan maadaama isku doon saarana qolo walbana mar ay dhibaatada ka imaan karto. sidoo kale baaqan waa guud ahaan qof allaala qof wax ka qaban kara dawladda iyo shirkadaha Soomaaliyeed baaqaas waa u dirsan lahaa. intaas uu baaqi ahaa haddana waxaan rabaa in bulshada Soomaaliyeed cadeeyo in xaaladdu waa waxaan ku suganahay daryeer ma haysto walwalbana waa haystaa dad lacagood ah walwalbana ay haysto sidoo kale inaan aniga $1 iyo $100 haysto. marka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inay soo ayaan dadkaas ka qaybsadaan. waayahay maxamed tahliil aad u mahadsan tahay fariintaada waa fahmay marka dad badan ay isweydiinayaan lacagta waa qasaartay aad sheegtay laakiin wax in bartiis ma jira oo aynisa oo hadda laga gaari karo xitaa marka suuqa forex kugu qasaarayo horta ma jirto wax oo kala harayo kala har la jiraan. marka adiga dadka aniga dadka waa igu dhacay markuu igu dhacana waxaan jirahay lacagta way kan dambe daadso marka ugu taagna waxa jirto wax la dhaho job doon ama
suuqa fuuta la maynas weyn ku taagan marka maynaskaas oo ugu taagnaa lacag badan oo ahaa waxa tahay lacag yarta hata iyada ku soo badbaadi sideena lacagta dhan ku wada dhamaatay marka aniga hadda wax ii haray oo aan suuq soo gala ama wax lagu badbaadi karo ama wax lagu kala sii karo ii haray akoonada dhanna waa cadeeyay waa soo duubay ayada waa soo duubay dadka aan lacag ka qaadana qaar waxa ku soo duubay ahaana dadka qayb ka mid ah waa idaariyeen oo saari mariyeen waxay imaan waa ay waxa keenay waana u dhaafay marka xaalad saas ay ahayd wax kala haray waya ugu dambeyn marka imise qofood ayaa wax lacag aad u hayso tusaale dakhliga intaas le ee qasaaray imise qofood ay maaragtay wax ku lahaa adiga dadka lacagta ay lahaayeen waxay ahayd 150,000 92,000 waxa ku lahaa aniga iyo yar kale oo aan walaalkay ahaa aan isla lahayn oo asaguna lacag ku lahaa lacag kale lahaa lacagta marka oo dadka ay cadadkooda dhanka waxa ku qiyaasay inay qol adiga meelaha beeraay waayo si marka waxaa jira hay'ado kale ama shirkado kale oo maxamedow forex ka sameeyo qaarkood aysan khibrad lahayn si marka haddaba ay uga feejignaadaan khasaaraha noocan oo haddii uu maaragtay imaan karo ma waxaa jira meelo gaara oo khasaaraha ka imaado tusaale dadka qaar waxay noo sheegeen in marka la isticmaalayo robotka oo lacagta uu robotka kuu ogaanayo iyo marka blockeratka ay kala duwan yihiin taasna bal si dadka qaar ay uga feejignaadaan ee hadda kusoo biirayo maxaana la wadaagi kartaa khibradaada maadaama aad tahay nin ku shaqeeyey khasaarana kala kulmi guud ahaan 10 badan oo aad u badan waaye marka brokerka uu ku sheegayo oo laga yahay lacag oo dad ku shaqeeya brokerka lacag ma shaqeeyo lacagta la daawana faa'iidada lacagta ee saamaxay brokerka laga shaqeeyo qaababka marka brokerka lacagta looga shaqeeyo waa dadka ay isticmaalaan soddonyada qayb kamid ah ay isticmaalaan dadna ay gacanta ku ay ku tirayaan dadna account manager dad oo ayagu shaqada ay shaqada wax ku soo jeedaa lacagta ay maamulaan account ku maamulo saddex qaab iyo qaabab kala duwan waxa kala hadlo marka jidku uu kala duwan yahay roberta ashar waa badan dadka shakhsiyaadka ah oo gaala oo ay yar yar waxaan kula talin lahaa inay isticmaalaan guud ahaan robot wax badan oo aad u tahay sidoo kale account manager aad u badan tahay marka suuqa waxa kaliya oo qofku uu lacag uga saaran karo waa waxa ka marka hore waa soo qaatay loo rid wax badan Soomaalida badanaa shaqada Soomaalida badanaa qayb ka mid ah wax ku shaqeeyaan hay'ad wax ka soo waana sababta aniga ugu falsafeynaa hay'adda xafidaadi maadaama dadka shacabka ay lacag laga qaado ee qofkiiba kooga qaado uu rabo 500 in bishii loo soo saaro taasoo waxay sababeysaa in lacagtii oo dhan aad suuqa dhigatid hal mar oo ay waxba ku kala hayo marka taasna adduunka horumaray iyo sida qowlada suuqa waxa kaliya lacag ka badbaada qofkiisa waxa waaye 4% sagaashan iyo lixdan waqti waxaana sabab u ah in dadku ay high risk wax ku tirayaan oo high risk wax ku raadiyaan dadka 4% ee guuleysana waxay isticmaalaan faa'iido la dhaho low risk oo ah in la lacagta dhan suuqa la dhigana wax yar aad jirtid bishan aad ka hesho 10% oo meesha konflict aad ka raadi lahayd boqol ama 500 aad bishii ka raadi $100 marka maadaama aysan dadku aqbalayn shirkadaas lacagta si qayb dadku aqbalayn waxay qasab noqotay in shirkadaha qayb ka mid ah iyo shirkadooda ay qaadato shirkadaas riskiguna ama waa ku helaysaa ama waa ku weynaysaa marka wax kala horaa laakiin maxamed dad badan su'aala meeshan hadhow ka imaan karta waxayna tahay adoo ogba in meesha risk ay tahay high risk la adeegsaday waxana waxa dad u haysa ay ahayd maxaa ku dooratay high riskigaas macne horta guud ahaanba marka forex lagu jiro waa marka riskiga waa ku jirta ilaa lacag raadinaysa waxaan kaliya ku doortay waxay ahaayeen aniga Soomaaliyeed oo aan lacag u hayay waxaan u shaqeynayay week ay lacagta suuqa ku jirtay weekii markay suuqa ku jirtay waa adiga waxaan qiyaasay inay ahayd 7 weegaas marka kidibka waxaa soo dhigay oo lacagta intii faa'iiday marka faa'iidadii la soo dhigay iyo lacagta dadka ka qaaday aad iyo aad ku faa'iido faa'iidada marka aan soo qaaday iyo faa'iidada aan soo dhigay groupka iyo lacagtii aan shaqeeyay oo aan dadka ka qaaday wax isku dhow maysan ahayn oo aad u yareed aniga loo riskiyay wali soo shaqeynayay lacag sana la soo dhaafay wax ku shaqeynayay loo riskiyay oo aan aad suuqa ka baadiyo fariida alxamdu waa soo guuleystay lacag labadaas sano lama lumin ka hor lacag badan la diyaaristay marka labadaas sano waa isoo fadhiyay marka waxyaalaha ugu sababay inay riskiga qaato waxay kamid ahaayeen in markaan riskiga soo dhigay qoraalkaas lacagta intaas xadidaas ay la eg in dadkii intay soo wacaan lacagaha badan lahaa ay gahaan waranayn oo lacagtan ama noo soo ama lacag badan nooga soo saar
lahaa lagu qaateen oo kala qaado ama lacag badan noo soo saaro waxaan ama lacagteena noo soo saaro waxaan nooga soo suuqa ah marka taasa maalintii oo inta dhan oo inta yaan dhihin markaan soo dhigay axadii maalintii oo dhan axadda waxaan ka fikiraa qaabkaan u wasiiri lahaa arrintaas dadka uga jawaabi lahaa waxaana go-aansaday markaas in arrintaas aan sida suuqa shirkadaha kale u galaan isla markii aan go-aan ka qaatay lacagta dahabka oo ah lacagta dahabka loo yaqaana oo ah la isku rafo dahabka iyo in la isku sarrifo dahabka iyo euro lacagtaas marka waxaa la qiyaasaya inay seel noqonayso maalinta sanadada aheed oo bisha ay aheyd 19 marka 19 marka seel suuqaas aa la qiyaasaya inuu noqon doono cudurkan coronavirus la dhaho oo hadda China ka dilaacay ayaa waxaa la maleynaya inuu asagoo positive soo baxayo oo la dhahayo waa yaraa marka haddii la dhihi lahaa waa yaraaday dahabka hoos u dhici lahaa taasaa marka waxay ii sababi lahayd ani haddii hoos u dhaco lacagta aan qadeeriyo kale lama haddi waa khasaaradu way dhacdaa suuqii muusan imaanin meeshii laga filaayay newska ma soo bixin waxaa soo baxday in magaciisa oo codkaas newskiisa ahayo markuu soo baxana dahabkii meesha arkeen oo hadda qofka aan meesha ugu markaas 1600 maraayay aniga aan galaayay meelahaas lambaradaas inu maraayay laakiin hadda wuxuu marayaa 1640 marka taasa waxay u sababtay dahabka uu kor u cararo oo meesha aniga aan seel ku jiro uu bay u cararo bay markuu cararo akoonada awalka waa wax wala badbaadi kartaa aad u mahadsan tahay maxamed aad u mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa Soomaaliyeed shirkadan maaragtay wax ku lahaan inay fariintaada gaarido shukran